si gaar ugu mahadcelinayaa dowladda goboleedka Puntland uu madaxda u yahay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo shacabka reer Puntland sida diiran oo wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga runtii waxaan iloobi karnaa ma aha waqti hadda aan taaganahay oo bulshada iyo dadweynaha iyo shacabweynaha reer Carmo ay ugu soo dhaweeyeen sida diiran oo waartinimada leh ee Soomaalida leh runtii waa wax aan weligeed midoobi doonin taasna waxay ka turjumaysaa dowlad jaceylka iyo Soomaalinimadina iyo midnimadina ay ka turjumaysaa waa madaxweynaha hadalkiisa oo yiri weli anu meesha ma imaan oo Puntland ma imaan oo markii ugu horeysay waa runtiis inaan fakar aan qaaday fakarkaan qaaday yani wax yar rabaan inaan soo koobo fakarka aan ka qaaday waxa weeye koow Puntland inay tahay meel nabadeed inay tahay meel dadkeedu ay jecel yihiin Soomaalinimada iyo dowladooda ay jecel yihiin meel soo dhaweyn leh muxibbo leh waartinimo leh Soomaaliyeed taas waxaa muujinaya qarno markaan tegay boqolaal kun yaa soo dhaweysay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah markaan ka soo tagnay oo aan nimid waaciye iyaguna waxay siiyeen geel haddana waa maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku kee dhacsan tahay marka haddaan soo taargoobo waan halkan imaado waxaan haystaa rati iyo faras iyo guri marka taas runtii waa kaftan waxay ka turjumaysaa xaqiiqada ka jirta Puntland iyo Soomaalinimadina iyo madax jaceylkeena iyo dowlad jaceylkeena runtii ka turjumaysaa waxaan rabaa inaan hadalkay ku soo gabagabeeyo safar dheer baan sugaya dad badan baa cadceed iyo qorrax noo taagan wax badan meeshaan kama sheegi karno oo aan rabnay inaan idinla qaybsanno oo aan halkan ka soo gudbinno laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan 2018 wuxuu noqon doonaa sanad dib u heshiisiin oo ummadda Soomaaliyeed ay isu keenayno ummadda Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda Soomaaliyeed aan walaalayno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo hawl badan shaqo badan aan gelino dhanka horumarka oo aad sheegteen halkan ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur in loo baahan yahay maalgashi in loo baahan yahay in la abuuro maxaan ku raada la xoojiyo oo la hormariyo ganacsatada iyo warshadaha taasna runtii waxyaabaha aan doonayno inaan sanadkan aan qabanno waa mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan ku daro wasiir soo dhawow dowladda waa dowlad shacab idinkaana ka turjumaya inay tahay dowlad shacab sidaad noo soo dhaweyseen marka waa inaan sheegno magaalo walba inaan sheegno dadkaa soo dirsateen iyo siday noola shaqeeyaan xayir oo wasiirkaa soo dirsateen waa xildhibaankaa soo dirsateen runtii waa u qalmaa inuu ahaado qofkii idin matalayo waxayna tegi doontaa doorasho xalaalaha oo qof iyo codkiisa tegi doontaa waana marka loo baahan yahay inaad ogaataan qofka idiin shaqaynaya oo dowladda kor u qaadaya iyo qofka dowladda majaxaabinaya marka waxaa idiin sheegaya xayir inuu si fiican idin matalo waxa uu ka hadlo oo u badan inta badan ay tahay darihiina gobolka khaas ahaan maxaan ku raahdaa magaaladan boqol jeer nagala hadlay inaan horumarino maxaan ku raahdaa
deegaanka inaan horumarino inaan maxaan ku rahdaa horumarino carmo magaaladan iyo xeradan booliiska ah sidaas darteed insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kusoo noqon dibna kusoo noqono wax alla wixii horumar ah aan samaynayno idinkuna qaybtiina aad ka leedihiin maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay inaan cadaalad samayno soo maaha insha allah saasay noqonaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu